AI waxay leedahay qaybo kala duwan oo saameyn ku leh sida aan u noolnahay. Aan ogaano sida shirkadaha kala duwan ay u sameeyaan mustaqbalkeena ama mustaqbalka teknolojiyadda. Marka hore, waa maxay AI research ama AI companies? AI companies waa shirkado diiradda saaraya cilmi baarista iyo horumarinta teknolojiyadda sirdoonka macmalka ah. Shirkadahan waxay soo saaraan aalado iyo software iyo nidaamyo kala duwan oo AI ku saleysan si loo horumariyo adeegsiga iyo awoodaha AI ee ku saabsan dhinacyo badan sida caafimaadka, gaadiidka, adeegyada macaamiisha iyo waxbarashada. Intaan gudaha u wadagelin, marka hore aan gadaal kusoo bilaabno taariikhda bilowga AI research 1950kii ilaa 1960. AI research waxay bilaabatay 1950kii markii uu dhacay shirkii Dartmouth 1956 ka dhacay Dartmouth College, USA. Shirkan waxaa loo qabtay inay isugu yimaadaan aqoon-yahano cilmi baarayaal si ay uga niqaashaan artificial intelligence ama caqliga macmalka ah. Shirkan waxaa lagu soo bandhigay fikrado badan sida John McCarthy uu ahaa hogaamiyaha shirkan, wuxuu soo bandhigay in mashiinno loo abuuri karo si ay u qabtaan shaqooyin complex ah. Waxaa kaloo jira fikir loo yaqaano logic theorist, wuxuu ahaa computer program ugu horreeyay ee AI isticmaala. Wuxuu awood u lahaa inuu xisaabiyo xisaab tiro badan. Dhexeysay 1960kii ilaa 1970kii waxaa la fahmay artificial intelligence. Dowladuhuna waxay fursad u arkeen inay maalgashadaan cilmi baarista AI. Mashruucyadii u dhexeysay ama waxyaabaha la qabtay 1960 ilaa 1970kii waxaa ka mid ahaa mashruuca ARP Advanced Research Projects Agency oo hadda loo yaqaano DARP Defensive Advanced Research Projects Agency. Wuxuu ka mid yahay hay'adaha ugu muhiimsan ee maalgeliya cilmi baarista Mareykanka, gaar ahaan dhinacyada teknolojiyadda difaaca. Waxaa la aasaasay 1958. Ujeedada ugu weyn ee ARPA waxay ahayd inay Mareykanka uu horumar ka gaaro iyo horumar ka sameeyo aqoonta iyo teknolojiyadda si uu uga hortago khatarta sii kordhaysa ee Midoogii Soviet kadib markii ay u direen satellite-kii ugu horreeyay ee isbaabulay, taasoo ahaa arrin kicisay degdegga teknolojiyadda. ARPA markaan waxay diiradda saaraysaa cilmi baarista artificial intelligence. Waxay horumarin ballaaran ku sameysay NLP, Natural Language Processing, Deep Learning Neural Networks, iyo robotics. Mashruuca labaad wuxuu ahaa Shorilo. Waxaa dhisay Terry Allen Winograd. Waa software ay ku dhex dhisan yihiin blocks kor saaran. Muhiimadiisu waxay ahayd wuxuu awood u lahaa in la weydiiyo su'aal ku saabsan blockskaas kadibna uu ka jawaabo iyadoo la isticmaalayo luqadda naturalka oo qof kasta fahmi karo. Sababtoo ah waxaa lagu jiray tijaabada NLP, Natural Language Processing. Inta u dhexeysay 1970kii ilaa 1980kii waxaa la galay AI Winter. AI Winter waa xilli ay xiisaha iyo maalgelinta cilmi baarista AI si weyn u dhaceen. Si kastoo ayadana hoos u dhacday xiisaha AI, waxaa haddana sameeyay xilliyo Lisp machines. Lisp machines waxay ahaayeen kombiyuutar loogu talagalay in lagu maamulo ama lagu kiciyo projectska. Lisp oo ah programming language oo loo isticmaali jiray in lagu develop gareeyo AI systems. Markii la soo gaaray 1980kii ilaa 2000 waxaa la develop gareeyay algorithms fara badan oo AI. Waxaa ka mid ahaa backpropagation. Algorithmkan waxaa loo isticmaalay tababarka neural networks, taasoo si weyn u fududeysay horumarka deep learning. Waxaa kaloo soo saaray barnaamijyo kaloo cusub oo AI lagu develop gareeyo sida TensorFlow oo ay soo saartay Google dhamaadkii 1990. Library-gan wuxuu ahaa achievements la gaaray sababtoo ah waxaa la fududeeyay qaabkii wax loo develop gareyn jiray. Kadib markii laga soo gudbay 2000, waxaa soo ifbaxay companies badan oo warbixin iyo projects ka diyaariya guud ahaan artificial intelligence. Waxaa ka mid ahaa IBM Research, Google DeepMind, OpenAI, Microsoft Research, Facebook AI Research, Baidu Research, Tencent AI Lab, iyo kuwo kaloo badan. Laakiin kuwan ayaa ah kuwa ugu caansan loo yaqaano ama ay ku dhex jira AI researchka ama products badan ka sameeyay AI ama artificial intelligence. Markay sidaas tahay, waxaa jira fieldiyo kala duwan ay shirkaduhu target ka dhigtaan si ay u sameeyaan productgooda. Waxaa ka mid ah NLP, computer vision, robotics. Aan ku bilaabno NLP. Waa maxay NLP? NLP waxaa loo soo gaabiyay Natural Language Processing. waa qayb ka mid ah cilmiga kombiyuutarka iyo sirdoonka macmalka AI.
artificial intelligence oo diirad saaraysa siday mashiinadu u fahmi karaan ama u turjumi karaan ama u falanqayn karaan luqadda bini'aadamka. NLP waxaa loo adeegsadaa in lagu abuuro application awood u leh inay fahmaan hadalka ama qoraalka aadanaha, ayna ka jawaabaan su'aalaha la weydiiyey ama turjumaan luqadaha. waxay sidoo kale aqoonsan karaan codadka. aan kula wadaago shirkadaha NLP-ga zaa'idka oo isticmaala ambarad badan kala waxaa ka mid ah Google waa hogaamiyaha ugu weyn cilmiga NLP-ga. wuxuu adeegsadaa barnaamijka Google Search. waxay isticmaashaa NLP si loo fahmo su'aalaha userka uu soo gelinayo search box-ka, kadibna in la siiyo natiijada saxda ah oo userkaas raadinayo. waxaa ka dambeeya NLP waxaa kaloo isticmaashaa Google Translate. asigana wuxuu isticmaalaa NLP si uu u tarjumo hal qoraal luqado badan oo kala duwan. waxaa kaloo ka mid ah Google Assistant. afkan wuxuu isticmaalaa NLP si uu u fahmo amarada la siinayo, si uu ula falgalo userka ama amarka la siiyey uu qaato asiga. waxaa kaloo ka mid ah shirkadaha OpenAI. marka AI maqasho shirkadda keliya kugu soo dhacayso OpenAI. idan waxay samaysay wax loo yaqaan GPT-4 waa nooc ka mid ah moodellada si weyn loo adeegsado gaar ahaan xagga chatbots-ka. GPT-4 waxay awood u leedahay inay fahanto oo ay abuurto qoraallo aad u dabiiciya markaa dabiici zaa'id niyaad macmal. waxaa kaloo ka mid ah IBM. waxay leedahay IBM Tone Analyzer tool. adeegan wuxuu isticmaalaa NLP si uu u falanqeeyo qoraallada una ogaado dareenka ku jira, taasoo caawinaysa shirkadaha inay fahmaan sida macaamiishooda u arkaan fariimahooda, waxayna hagaajinaysaa habka ay ula macaamilaan macaamiisha. muhiimadda NLP waxay tahay keliya in la fahmo qoraalka ama hadalka ay bixinayaan dadka, kadibna la abuuro jawaab ama qoraal cusub oo ku habboon xaaladahaas kala duwan. fildiga labaad waxaa loo yaqaanaa computer vision. computer vision waa qayb ka mid ah cilmiga kombiyuutarka iyo sirdoonka macmalka AI. tan waxay diiradda saaraysaa sida loo fahmo oo loo falanqeeyo sawirada iyo muuqaalada si otomaatig ah. ujeedadu waxay tahay in mashiinadu loo suurtageliyo inay arkaan oo ay fahmaan sawirada iyo muuqaalada sida uu bini'aadamka u arko. aan kula wadaago projectska shirkadaha waaweyn ee isticmaala computer vision. OpenAI markii sawir la geliyo ama markii DALL-E loo diro sawirkan oo kale samey aan dhahdo, DALL-E waxay sawirka inay fahanto waxaa ka caawinayo computer vision. tusaale kale waxaa ka mid ah Apple tusaalaha markii oo taleefanka aad isku furayso oo kale wejigaaga uu xiran yahay face recognition-ka, inuu taleefanka wejigaaga fahmo waxaa ka caawinaya waxaa loo yaqaanaa computer vision. sidoo kale Google waxay leedahay application loo yaqaano Google Lens. Lens-gaas waxaad raadin kartaa wax walba adigoo kaamirada ku aadinaya, kaamirada oo meelaha ku duubayo kale. waxaad dhigi kartaa shaatigaas intaad duubto waxaad dhigtaa shaatigaas meeqaa la gadaa, because Google wuu kuu qiimeynaa shaatiga soo qabanaa, wuu fiirinaa, wuu kuu qiimeynaa. qodobka saddexaad waxaa loo yaqaanaa robotics. waxay diiradda saartaa in la soo saaro machines caawiya si ay howlahooda ugu fududeeyaan ama guud ahaan wax tara ayagoon u geysanaynin wax caqabad ah ama wax dhibaato la xiriira. hamar aan kula wadaago shirkadaha robotyada soo saara. midda koowaad ugu caansan waxaa loo yaqaanaa Boston Dynamics. waxay soo saartay robotyo fara badan. waxaa ka mid ah robot loo yaqaano Atlas. wuxuu leeyahay laba lugood. waxaa loo talagalay inuu dadka caawiyo, inuu noqdo assistant. tusaale ahaan wuxuu awood u leeyahay inuu wax alaab ku keeno. waxaa u dirsanaysaa alaabta xaggiyaa soo qaad dib ii keen, wuu ku keeni karaa. wuxuu kaloo awood u leeyahay inuu boodboodo u ordo. wuxuu u samaysan yahay sida qof camal laba lugood u leeyahay, bas caadi qof u shaqaynayo oo kale baa. waxay kala sameeyeen robot loo yaqaano Spot wuxuu leeyahay 4 lugood, wuxuuna u samaysan yahay sida EA oo kale. waxaa loogu talagalay inuu ka shaqeeyo meelaha halista camal ama in lagu xiro kaamirad kadib oo soo duubo meelo oo qof aan lagu aamini karin oo kale. kaas sidaas ayay ugu talagaleen. shirkadda labaad waxaa loo yaqaanaa SoftBank Robotics. waxay soo saartay robot loo yaqaanaa Pepper. robotkan wuxuu awood u leeyahay
inuu u dhaqmo sida qof customer support oo kale ama qof soo dhaweynayo macaamiisha. waxaa la istaajiyaa inta badan albaabada oo dukaamada ama airboorada ama albaabada bangiyada oo kale si customerska uu soo dhaweeyo oo uu u wajahayo customerka meesha uu u baahan yahay oo u diro. shirkad kale waxaa jirta loo yaqaano ABB Robotics. ABB Robotics waxay soo saartay robot loo yaqaano Yumi. Yumi wuxuu awood u leeyahay sigana waxaa loo talagalay wuxuu leeyahay laba gacan. waxaa loo talagalay inuu ka shaqeeyo shaqooyinka sida electronic camal ama shaqooyinka sida mashiinada ama warshadaha si uu suuqa keeno alaabta yariiska macnaha waxa la sameynayo si uu suuqa keeno. muuqaalka intaas ayuu ka egyahay. haddii aad ka heshay like saar si uu dad badan u gaaro. aan iloobin inaad mobilka furato si muuqaalada cusub ay kuusoo gaaraan. hasan daawashadaada waxay noo balanaa muuqaalkan